qaar ka mid ah cuntooyinka qofka gastriga qaba dhibaato ku ah oo ay tahay inuu ka dheeraado. حبيبي سؤالها ugu muhiimsan waa tan weeyaan runtina maadaama barnaamijkan yahay barnaamij wacyigelina waxaan u baahanahay in dadkeena iyo bulshadeena kala hadalno laba arrimood waxa jira cunooyinka qaar toos xiriir u leh gastrida iyo qaar waxa jira qofka xaaladda ka sii daraya oo sii kicinaya tusaale ahaan oo kale markaynu eegno cunooyinka shiilshiilan cunooyinka suugada leh cunooyinka bisbaaska leh cunooyinka muddada dheer la dhigo meel cunooyinkaasi waa cunooyinka isla markaana saameynta weyn ku leh inay gastrida xaaladda uga sii daraan ama iyaguba xaaladda ka sii seedcaleeyaan waxa kaloo jira cunooyin aad u badan oo waddankeena aad looga isticmaalo oo aan inta badan inoo ilaalinaya inay gastridu inaga yaraato waxaa ka mid ah cunada baalka leh ama cunada waddanida cunada aan shiilnayn cunada aan bisbaaska lahayn cunada aan in badan la kaydinin cunooyinkaas oo dhan waxay naga caawinayaan inaynu helno cunno caafimaad qabta markaas channel waxaan kusoo koobaynaa cunooyinka shiilshilana bisbaaska leh cunooyinka suugada leh cunooyinkaas oo dhan waxay risk factor ugu yihiin ama ay keenaan gastrida